waaya ninka dadka kale moorhayo oo aan idin qaban waaya waxa la ku kin xijinayo marka ilaahay waxaan ka baryahayaa inaan noqdaa midkaas laakiin xijinayo oo waxtar gooni ah idin tara aan ilaahay ka rajaynayaa وأنا هاتن جمهورية مكان لها وحن جعلها هذا الير أو أسكا أما هلك كان أما نلك لمرمرة مركا لها لو حنا درمسة كمار هي في ماشا في بوبليكا لغا يجرى في بالمرطة وإغاس أما وإجا بريو وحن إذن كبري هيا جمهورية مقعدة إنا لبدنو في ما أنو ما أنو في بوبليكا وي في بوبليكا لما الجمهورية اللي هذا أنو أبدا ماشا هيا وأن رئاسة ريبوبليكا ويا ريبوبليكا وادوكتاي واي كدوان تهي وادوكتهين سينما iyo monarkiya iyo waxa kan ama saldara lagu magacaabo oo waxay uga duwan tahay waa marka hore hawshu way kala qaybsantaa waadogtihiin oo baarlamaan Soomaaliya jira oo qawaaninka gooya xukuumad baa jirta Soomaali ah oo hawl dastuurku u dhiibay waliba hawshii ugu weyn dawladda gacanta ku hayso maamusha oo loo dhisay inay u qunto dhibaatooyinkii ummadda Soomaalida ayna ka qabato waxay ka qaban karto waxaa jira qadaa'iga ama maxkamada oo qudaadda iyo judiciinka ay ku tirsan yihiin oo loo dhisay inay kala gooyaan ama ay siraan dooda ama banaal ha noqoto ama kiil ha noqoto dadka jamhuuriyadda jooga ka dhacda taydi baa soo hartay taydi waxa weeyaan hay'a inta ka duwan oo ra'aasada jamhuuriyadda la yiraahdo oo haatan ninka meesha loo dhibaa maantay waa ana jooga hawshiisu ay tahay wax la soo dhamaystay inuu saxiixa baarlamaanka qawaanin la geeyaa ama nawaad ha geyso ama xukuumaddu ha geyso waa baarlamaanku ka hadlaa wuu aqbalaa markuu aqbalaa ra'iisul jamhuuriyadda loo geeyaa waxa qawaaninka saxiix xukuumadda fariisata mashaakisha oo waxay ka hadashaa hortaala qaraarad bay qaataan qaraaraadkaas ay qaataan bay ra'iisul jamhuuriyadda u keenaan dekreet ay soo sameeyaan meeshii baarlamaanku leeja ka soo sameeyo saxiix yiraahdo taa haatan sidan galabta sheegay oo meel kale taan ku sheegay haddii dhaqanka Soomaalida loo fiirso waxay uga ekaan kartaa guddoonkiini markii haatan unta guntu hadday isu tagto la tashado oo daqowdu talada ay goyso nin oo madaxa la yiraahdo haye waxa kana la soo gooyay guddooni waa markii hadda la igu roonyaa markii kale tan hadda waxaaba muddo hawshaydu inay tahay ku ducay waxa kana soo dhamaysanay ayadoo bal horta aanan jirin meeshaas aan moodaysan hawshaydu haatan hawluhu ay kala qaybsan yihiin baan iri ilaahay idanka waxa noqon doona sidan galabta xukuumadda kii ku karkareeya oo u geeya oo ku dabagala dhibaatooyinka galabta iyo caawa iyo haatan caawa markaan leeyahay dabcan waxa ku jirta xaasidii aad noo dhiibteen oo aad noo soo hormariseen inaan dhaho wixii aad ka qaban kartiin ka qabta ndaa hadda waana u jeedin wasaaradina qaar baa ila socda qasadkuna wuxuu ahaa inay intay ila socdaan ay maqlaan way ka maqlaan ummadda afkeeda dhibaatooyinkoodu iyo madaariftoodu waxay tahay The government of Somalia, East Africa, has severed diplomatic relations with Britain. So
waxyar kadib markii ay Kenya xornimada qaadatay 1963 Britain waxay ku dhawaaqday in gobolka Soomaalida ee NFD ay ku wareejisay Kenya arrintan waxa ka carootay Soomaaliya oo markaas 3 sano hor ahayd waxay dawladda Soomaaliya ee madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan xiriirka u jartay Britain qeeladaan shacab ayaa sababtay inuu fariisto baarlamaanka Soomaaliya waxaana 74 xildhibaan ay u codeeyeen in xiriirka loo jaro Britain رئيس الوزراء عبد الرشيد علي شرماكي ayaa gaarsiiyay safiirka UK u jooga Muqdisho Payman in ay Soomaaliya ka laabatay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Ingiriiska waxaa la xiray safaaradii Britain ee Muqdisho waxaana maalin kadib dalka lagu amray inay isaga baxaan shaqaalihii Britishka ah ee joogay safaaradda sababtoo ah Soomaaliya marnaba ma ogolayn in Kenya lagu wareejiyo dhulkeeda lama filan ayuu go'aanka Soomaaliya ku ahaa Britain dadka Soomaalida ay ku nool NFD waxay xilligaasi doonayeen inay la midoobaan Soomaaliya qaramada midoobay ayaa ugu baaqday Muqdisho inay xaaladda dejiso si loo dhiso loona hormariyo kaalmada la siiyo Soomaaliya Britain waxay xilligaas Soomaaliya mucaawinaan u sii jirtay 1,250,000 oo pound Ra'iisul Wasaarihii Soomaaliya xilligaas Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waraysi u bixiyay ku sheegay in aanay Soomaaliya caawimaad danba uga baahneen UK 56 sano kadib Soomaaliya ma raadinayso gobolka NFD ee Kenya ayaa raadinaysa inay dhul cusub ka boobto Soomaaliya 56 sano kadib Soomaaliya safiir uma ceerin dhul raadin ee midkeeda ayaa loo soo ceeriyay in dhulkeeda la qaato muxuu ku dambeyn doonaa muranka taagan waxaan la duubnahay jidhkayga dhaawacaan idin dhammaynayaa dhegama leedihiin dardoohanoon dhegaysan waanado warkaygu dhaafayo dhufaanan baa tihiin